horta waan salaam saxaabtida qaaliga marka koowaad marka labaad saaka muuqaal jira snapchat-kayga soo dhigay dadka waxaan malaynaa inaan soo dhigtay okay ani ma soo dhiganin muuqaalkaas iya saaxiibkay ku qancinay waa duubay faarki u horeeyay mobilkayga soo galo ahay waxa dhacday marka qof rabay in muuqaalada iga dirsado ugu rakaatay dirista uu dirsanay luuqa and then publicna way ka soo gashay okay alxamdulillah waxaas wax ma iga dhibayaan naaga kun ay shabasa kow ayna kala baxdaa mid kale anu single baana maalintan dhalay week kadib wiilkan kala tagnay babygayga almost 4 months i bilowino sii maraaya markaan kala tagnay anu soo qori rabay inaan kala tagnay oo markii koowaad ba xasuusatiin am single ah idin soo qoray maalintaas la farwaana markaan dhalay markii ku xigtay family waxay dhaheen mar dambe ha ka hadlin inta cudurka ka tirsanaysid ina qamar isku noqotiina laga yaabo okay baa maadaama uu mushka markay tahay go'aan sax gaari karin oo depression stress wax badan jiraan hormoneskeeda isbedelayo waxaas dhaha hadlin I am single as soo qor hadaa xasuustiin maalinta la furo waxayna ahayd 4 bilood ka hor ahayd okay kama soo hadlin kadib waxa isla duubnay laakiin waxaan ahayn nin iyo naag oo cunug bis ka dhaxeeyo islama degnin muqdisho xaafad bulxubeel dhaho deganaa anigana jubban deganaa okay uu iimaan jiray ilmahaas leeyahay jir waxaas just friend la ahayn soo markaa kaasa guys markaa soo baxay sababta soo raacna idin sheegan markaa soo baxay kaliya ahay diyaaradda qof kale oo ilmaha ila wada ma haysan waxa dhax markaa abuu i caaw ilmaha Nairobi lagay wiilkan adaa dhalku wana dhiblaana dhashiyaas way caawi is good man hada idin sheegaya uu isoo caawi ilmaha la soo qaado ila keenay magaaladiisu geesugu jiro dad saaxiiba inaan noqono oo ubad ka dhaxeeyo oo friend ah oo wax walba ina dhaxmara aan caloosheena ka xarno aan ku gaarno oo isna calafkiisa raadsada ana calafkiisa raadsado okay waxa ku soo hartay intaas markaa ku heshiinay kadib waxa dhahnay walaalo mar rabna mashquul okay dinner the voice aba sameysanaynaa buuq iyo sharaq iyo warka u kala qaad iyo dhaxgal iyo maba rabnabo saas anaga dinner the voice sameysanaynaa still friends aan magaaladiisa soo qasooya magaalada qasooya okay wuxuu i weydiisto magaalada abay meeshaas ka raba hadoo dhaho waa u taga qamar waa u sameeyaa aboo waxa saaraba saas maanta ii sameey hada dhan uu ii sameeyaa is good man hada idin sheegaya laakiin aniga naag aqal badan ahay asrin aqal badan waa that's why aan dhaxas idin dhahay isku dad manihin okay labada qof markay aqal badan yihiin furayaashaas ma galaan labada qofood inuu qof dabaal noqdaa ama inuu qof samraa dhagaha istira so I can't isna ma awoodo marka waa kaasa guys xafladda marka isla joogna ku soo hartay dad badan ay dhaayeen prank bay nagu sameeyeen been noo sheegan okay wiilkan wuxuu u sameeyay dhibaato oo meelaha uu joogo aan ugu odaaya ima rabi aan samarawe cunuga naga dhaxay bis maxaa kale wax kale naga dhaxayaan marka naaga waxa jira dhahaan allah maxkayga joogo wallahi waa cunaya waa yeele ma jirto sister ninka haduu mar ubad kala dhaxeeyo good relationship cunuga iyo aabaha inay ka dhaxaysiiso jacayl isku qaadan muhiim waa ilmaha inta yar yihiin jacayl lagu beeraa cunuga haduu weynaado macna ma lahan okay aabihiis waa la baraa sometimes kala la sheekayso waqti la qaado banaanka u bixi maanta so inta sina samee ceeb miya in ilmahayga aabahood friend noqdo ceeb miya abbas ba friends ana xaasu leeyahay gabadhu jecel yu haysta and then ilmihiisu u yimaada waqti la qaataa of course ninkana sidoo kale so hadaa kala dhamaanay calafkii la dhamaaday so wax dagaal iyo buuq iyo baraq isku qabsad meesha ma yaalan okay mid kale waxa rabaa inaan idin sheego ana hal qof calaad la dhaxmartaa qofka jirkeyga ama dhabankeyga wax ku dhufto never ever aqri adduunkodan la galaa been ma idin sheegay ay qof ay u soo xad gudbin oo ilmaheyga aabiis xushmadan dhaxmarayso caadi la iska dhigo single baan ahay aan idinka baashaalo waqtigiina qaatay idinkana